mid mannihin oo ilaahay baa naga dhigay laakiin waxaan diidaynaa awood qaybsi la'aanta ayaan diidaynaa waxaan diidaynaa anigu kaliday waxa ahaaday adiguna aamu waxaan diidaynaa dulmiga dadkeennana waxa hayaa runta marka loo hadlo waxa weeyaan bili aadanku haddii maskaxda laga qabsado meel ma gaadhaan maskaxdaa laynaga qabsaday maskaxdeenna ayaan mid u wada shaqaynayn maanta ma ihin dad wax goosan kari waaya laakiin qayb iyo xukun bay nagu dhacday qolaa laynoo kala qaybshay saddexda inanaan wada dhalay haddaan midna idhaahooyo adigaa fariida adigaa wanaagsan adigaa dahaba adigaa daryeel wanaagsan idhaahdo midna war doqon yahow naga tag dee kaan tag idhid moralkaa ka dhimanaya taasoo kale ay nagu dhacday reer hebel baa wanaagsan reer hebel baa fiican reer hebel baa xun reer hebel baa la doonayaa war maaha waxani waa samaroon waxani waa samaroon ilaahow 30 inan oo beel qudhaatay imay meel ka soo wada baxaan gobolka awdal ma u dhashan mise uma dhalan taa weeyaan taan doonayn taa weeyaan taan maxaa u xarbiyayn waddankeennana xadaaradii u lahaa way baabaaday oo qabiil baa baabi'iyey sanadahan u dambeeyena maskaxda waxay naga haystay waa qabiil horta qabiilka aan la dagaalano markaasaan meel gaadhaynaaye farq u dhahaatay aan noqono markaasaan meel gaadhaynaaye waxay noqotay awood qaybsiga Soomaaliland anoo u soo noqonayay nuxurku halkuu yahay waxba ha arkin waxba ha uurin waxna ha maqlin ma noqonayso taa ma noqonayso waxayna u noqonayn Soomaaliya gobolka awdal waa gobolkii xadaaradda waa gobolkii waxbarashada waa gobolkii Soomaaliland lagu aasaasay haddana ka qatano oo beerka dhulka ku hay ma noqonayso mana yeelayno xaqiiqda marka loo hadlo mana yeelayno waayo hadduu qofku xadaarad leeyahay da waxa ka muuqan lahaa maxaan ku dhahdaayay wuxuu ka muuqan lahaa meesha awoodda lagu qaybsanayo wuxuu ka muuqan lahaa meesha wax maxaa lagu kala qaadanayo magaaladiisay ka muuqan lahayd